kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janaalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona dawladda Kenya ayaa bilowday qorshe halis ku ah dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ka gadaal markii isku day ay ku doonayso in ay ku hubayso jabhado iyo maleeshiyaad ka soo jeeda deegaanka ka tirsan gobolka Gedo iyo Jubbooyinka halkaas oo la sheegay inay qoryaha fudud iyo kuwa garbaha laga tuuro ay u dhiibayso haddaba xog iyo qorshe arintaas ay ka damacsan tahay ayaan soo gudbin doonaa dawladda federaalku maxay ka tiri xilli xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo soo wanaagsaneen sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa weerar cad oo qiyaxan ku qaaday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed haddaba weerarka Taabit uu ku qaaday madaxweynayaashaas hadalka ay sheegeen muxuu yahay arrin ku saabsan ciidamadii Eritrea loo qaaday ee ka dagaalamay dalka Eritrea ayuu ku saabsan yahay waan idin soo gudbin doonaa ayagu maxay ka yiraahdeen jawaab ay dhankooda ka bixiyeen waa daawo doontaan isbahaysiida ugu waaweyn ee mucaaradka Soomaaliland oo markaan wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xisbiga muxaafadka ee talada haya ee hogaamiyay Muuse Biixi Cabdi haddaba maxaa markaas cadaadisku ku soo baxay kadib markii heshiis ay dhawaan ka gaareen arrimaha doorashooyinka qodobada kana waxa qayb ka noqon doona xafiiska Masar Roble ayaa faahfaahin iyo markaas xogo macluumaad ka bixiyay qorshaha guddiga farsamo ee la magacaabay ka taageeri doona arrimaha doorashooyinka warar kale gobolka Geeskan waxa ugu weyn arrimaha diblomaasiyadda madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeeyay safar dibadda ah ku tagay dalka Ingiriiska kadib doorashadii halkaas ka dhacday uu ku soo baxay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa iyo warar kale ee Soomaaliya caalamka ee soo kordha daawadayaal haddii aad nagu cusubtiin subscribe-ka saartan gabalkan furtoono share gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinku markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aynu ku bilaawno dawladda Kenya ayaa markaan u muuqata mid ay ka sii darayso xaaladeeda fargelinta ku saabsan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose iyo deegaanada guud ee maamulka Jubbaland waxaan ay halkaas ka bilowday jabhadeynta ciidamo la sheegay inay tababarayso waa maleeshiyaad ay qoryo ku hubaynayso isla markaana ay doonayso in dawladda federaalka ay kaga soo horjeestaan ayagii markaas Axmed Madoobe ay isku dhinac yihiin afayeenka ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gedo aadan Axmed Xarsi aadan Rufle oo dawladda Kenya ku eeday inay hubaynayso beelaha Jubbaland qaarkood si ay dhexdooda ay isugu dhibaateeyaan waxaan rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaago dal iyo dibadba Kenya inay dhibaateyntii halkeedii ka sii wado 6 ilaa 7 bishan xalay ilaa habeen hore iyo cimilo ka furxun ay hoosha gashay ayuu yiri afayeenka oo la hadlay warbaahinta afayeenka ayaa sheegay in degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo ay ciidamada dawladda Kenya ay ka bilowday maleeshiyo beeleed ay hubaanayso isla markaana qoryaha noocyadiisa kala duwan ay u dhiibayso inkaas ay ku weeraraan dad reer miyi ah oo halkaas degan iyo in dawladda federaalka si weyn looga soo horjeesto deegaanada ay sida weyn ay ciidamada Kenya ay u doonayso in ay qabsadaan ayaa ka mid ah dhulka NFD ismaamulka Gaarisa ilaa ay Liboya oo gaaraya oo guurayaan oo gudaha markaas u qaayaan kuwa kalena la boobayo xooloodii iyo nafsoodii oo la weerarayo ayuu yiri korneelka wuxuu sheegay in goobaha dadka lagu weerarayo ay ka mid yihiin deegaanada kale ah Cali Buure Dayac Garoon Raasho Cali Yacquub Toosile iyo Hara Cali oo ka tirsan gobolada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo meelaha dadka lagu weeraray waxaa ka mid ah Cali Buure oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo na dhow deegaanka Dobley Dayac Garoon oo hoostaga deegaanka Gerley iyo gobolka Gedo waxaana ka mid ah Raasho Cali iyo deegaano kale ayuu yiri korneel aadan Rufle wuxuu soo kala sheegay maleeshiyada taabacsan Axmed Madoobe iyo dambiilayaal kaleba ay ka mid yihiin kuwa argagixisa ah si ay u sii jariiqaan iyaga oo qabiil la isku dirayo lana qaxinayo hubka iyo qalabka la isku dhibaateynayo ayuu yiri afayeenka ciidanka xoogga gobolka Gedo aadan Rufle odayaasha ayuu ugu baaqay ee deegaanada Jubbaland in ay markaas ay u sheegaan wax ka qabashada xaaladda uu sheegay inay ku soo kortay deegaanada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo Jubbaland ayaana waxa ay inta badan ay gacan saar leedahay maamulka uu hogaaminayo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Muigai Kenyatta isla markaana faragelin toos ah ku hayaan arrimaha dalka Soomaaliya waana markii hore waxa keenay in xiriirka ay u jiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya qabiil hore ayaa weli daawanaysan saaxiibada markaana gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaana duqii hore Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa weerar aan gabasho lahayn oo jawaab celin u ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ku qaaday Taabit Cabdi Maxamed ayaa wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre
oo dusha u saaray mas-uuliyadda askarta Soomaalida ah ee ku maqan dalka Eritrea. Qoraal u muuqday inuu jawaab u ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayuu dadkii hore Muqdisho ku weeraray Xasan Cali Kheyre iyo midowga musharaxiinta, wuxuuna sheegay inay dhankooda baaritaan ka sameeyaan dhalinyarada Eritrea ee tababarka loo qaaday oo aan raq iyo ruux toona loo hayn. Waxaan oran lahaa baaritaan bulshada u furan, public iyo dhexdiidana ka sameeya, maadaama uu midowga musharaxiinta xubin in kala yahay wasaarihii hore ee Soomaaliya oo xog ka bixin kara amuurtan ogaana u ahaa hay'adihii fulinta xilligaas, ayuu qoraalkiisa ku yidhi Thaabit Cabdi Maxamed, isagoo ku dooday oo dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan ayaa loo kala guraa. Wuxuu uu sheegay inuu mar kale ku celinayo in dowladda federaalka laga sugayo inay ummadda ay run uga hadasho haddii ciidan tababar u baxay loo adeegsaday dano ka baxsan midda qaran ee loo diyaariyey. Duqii hore Thaabit Cabdi Maxamed oo mar saaxiib dhow la ahaa wasaarihiisii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku heystay inuu qarar qayb weyn ku lahaa sababihii keenay in xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir laga qaado Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed ayaana si kulul uga hadlay arrinta ku saabsan ciidamada dalka Eritrea loo qaaday, isla markaana la sheegay inay ka dagaalameen gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan aagga ay dagaalada xooggan ay ka socdeen ee Tigray. Shariif Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta ayaa ka hadlay xaaladda askarta Soomaalida ee ku maqan dalka Eritrea. Qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay warbixinta ergeyga ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ee ka hadlaya xaaladda askarta Soomaalida ee loo qaaday Eritrea ee lagu sheegay ku lug lahaanshaha dagaalka Itoobiya. Dhankiisa, Xasan Sheekh Maxamuud oo dhalinyaro taageerayaashiisa ka mid ah oo kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si kulul uga hadlay askarta dowladda Soomaaliya ee ku maqan dalka Eritrea, isaguna dalab u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii mas'uulka ka ahayd arrintooda. qaybihii dhexe ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaa saaxiibayaal, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saaro, gambalkana furo oo share garee saaxiibadii meel kasta ay joogaan, idinkoo markaas kumantiga iyo laagana inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. markana Somaliland, isbahaysiga xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa wajahaya cadaadis hor leh kadib markii ay xukuumadda soo fargelisay heshiiskii dhowaan ee ay ku samaysteen isbahaysigaas, kaas oo dhigayay in labada xisbi ay kala qaybsadaan kuraasta hoggaanka cusub ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. sida uu dhowaan baahiyay janalka ka ah wararka, hoggaanka labada xisbi ayaa ku heshiiyey in xisbiga Wicid uu qaato maayarka caasimadda Somaliland iyo Hargeysa, halka uu xisbigu Dani isaguna uu qaadanayo guddoonka golaha wakiilada, iyadoo ay socdaan shirar looga hadlayo arrintaas. saacado kadib waxaa bilaabmay guux ka dhashay qaabka ay xisbiyada mucaaradka ay u kala qaybsadeen maayarka Hargeysa iyo guddoonka golaha wakiilada, iyadoo markaas arrintaasi uu si rasmi u soo farageliyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. madaxweyne Muuse Biixi ayaa shalay kulan la qaatay musharaxii ugu codcodka badnaa ee golaha deegaanka Hargeysa, kaas oo ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee Wadani, kadib markii uu shalay u diray baaq la xiriira in la tixgeliyo codadka 26,000 ka badan ay siiyeen dadweynaha Somaliland ku nool. Muuse Biixi Cabdi ayaa xildhibaan Cabdikariin Axmed Moogi u ballan qaaday inuu kala shaqayn doono sidii uu u hirgelin lahaa hankiisa siyaasadeed oo ay dadweynuhu caasimadda ugu heli lahaayeen, taas oo dhabar jab weyn ku noqonaysa qorshaha isbahaysiga mucaaradka. Cabdikariin oo u sharaxan maayarnimada caasimadda Hargeysa ayaa dhankiisa madaxweynaha si weyn ugu mahadceliyey sida markaasi milgaha iyo degdegsimada leh ee ugu soo jawaabay baaqii uu saacado ka hor u diray, wuxuuna tilmaamay in wanaaggaas iyo xilkarnimadaas uu u muujiyey ay tahay mid uu ku faraxsan yahay. kulanka Muuse Biixi Cabdikariin Moogi ayaa waxaa ku weynaya qaar ka mid ah golaha wasiirada, xubno ka mid ah xildhibaanada wakiilada ee dhowaan la doortay, qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee dhowaan caasimadda loo doortay, iyo hal-dowladda kale ee Somaliland kuwooda ugu cadcad ka mid ah. guud ahaan daawadayaal wanaag intaa wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo caalamka aad kala socoteen janalkeena ka ah wararka. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saaro, gambalkana furo oo share garee saaxiibadii meel kasta ay joogaan, idinkoo markaas kumantiga like-na inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin.